صمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. helsinki markaan joogay nin oday akhyaara igu yidhi qisa uu la kulmay buu iiga warramay. nin caddaana oo naag caddaana qaba, naagtiiba isku soo dhaceen buu yidhi. markaabuu qaraar wuxuu qaatay stresski intuu ka batay inuu building intuu fuuro inuu iska soo tuuro. nasiib wuxuu ku soo hagaagay maalin ciid oo ciidii islaamka. buildingkana soomaalibaa u badan oo degan buu yidhi. buildingka hoostiisa markaa dumarkii iyo ubadkii iyo caruurtii ay iska fadhiyaanoo salaadii ciidda laga soo baxo, halkaasaa buskud iyo nacnac iyo waxbaa la salsalaamayaa. ragguna raggay salsalaamayaan, xabadka u saarayaan, dumarkuna dumarkay markaa iyay salsalaamayeen, iswareysanayeen. uu ku soo dhex dhacay markaa isagii oo wuxuu leeyahy meesha ka fuulo iska soo tuur. muslim jadiiday u maleeyeenoo markaaba isagiina laabta u saareen. welcome brother intay idhahdeen. markaasuu kanaa ku dhegay, kan kalaa ku dhegay, kanaa ku dhegay. markaa isagii baa yaaban. markaasuu soo fadhiiso, waa la fadhiisiyey. shaahi baa la siiyey, shokolaata la siiyey, waa la ikraamay. markaasuu yaabay, wuxuu yidhi war anigu muslim ma yihi, waxaanaad la faraxsantii ma waxba lii sheega. inaga mid ma yihi anigu, ilaa nin meel kalaan u socdaaye. waxaynaku muslimiin baa nahay oo ciiddii islaamka weeyaan maanta. waa farxad oo islaamku waa maxay? waxaad aaminsan tihiin allah wa rasuuluhu waljanna walnaar walmaxshar. noloshii islaamka looga warramay. wuxuu hadda anu waxaan u socday cimaaradda intoo fuulay inaan iska soo tuuro. laakiin marba haddaad sidaa u faraxsantihi anahani la farxe, diinta islaamka may bari kartaan buu iska farxe. maxaa ku haya noo sheeg. qisadii buu uga warramay. dhib ma laha baa lagu yihi, dhib ma laha. haddaa naagta isdiideen, haddaad islaamtid tu kalaa laguu dhisi, iska guursan, waa iska noolaan. maxaad isku dil? ilaahay baa nolosha ku siiyey, aakhira aad u socotaa. haddaad ilaahay aaminto ood ilaahay aad caabuddo, islaamnimada ilaahay aad ku caabuddo, jannaad galaysaa. jannadii baa lagala hadlay marka. waxa ilahay u diyaariyay muminiinta. intay buu ku islaamay. waa farxaddaa yare ciiddee dadkeena weliba wada murugoonaya ee waalid walba uu leeyahay ciyaalkaagu ma lagaa qaadan, maad haysan, maxay ku dambayn doonaan. annakiiba xataa welwal nagu beereen. markaan masjid galaba 10 baa imanayso walwalaysa. mujtamaca idila iska walwalaya walbahaarsan. farxaddaa maalintay ciidda ay faraxsanaayeen buu nin ku soo islaamay. haddaan 24 saac iska faraxsanaana ka warramo, diinteena ka shaqayno, oon ilaahay aamino, bal ka warrama, oon iyaka u murugoono. ila waa kan waxay haysteen waxbay naga siiyeen. halka maanta inaku aan joogno hadday iyaku joogi lahaayeen oy nagu soo qixi lahaayeen ma qaabili lahaydeen? waa sheega dee inakii baas bixin weyne, maxaad bixinaysaan? soomaaliyadaas bixin weydaba cidda kaleda waxu tari waa cidde, hadday wax isku tarin labe. waxaad arkaysaa dadkan waa masaakiin, diin un baa ka maqan bes. diin magaalooyinka markaan joognay gobolka Finland waxay dhahdeen alaabaha dariiqa, qofku hadduu dariiqa wax ku lumiyo, wax kaga dhacaan, ama mobile kaa dhaco, ama boorsad ay kaa dhacdo, ama waxay kaa dhumaan, xaafad walba waxay leedahay meel la keeno alaabta dariiqyada laga soo qaadee dadku ay doondoonayaan dadka ka dhuntay, meel la keenaa jirtay bay nagu yidhahdeen. inanka dhulkeena ka warrama, kabiibaa masaajidda la gali kar laana xaggeeni. nin baan ku yihi salaada tuko oo, salaada waan tukadaa laakiin masjidkuma tukada buu ihi. nin madaxa buu ahaa. maxaa masjidka u diidaan kaydho 6 jeer marka kabaan soo ibsida layga xaday, mayakaan u shaqeeyaa buu yihi. dadka tukanaya horta ku khuruuja buu yihi. tabliiqow, dadka tukanaya tabliiq horta ku sameeyo, diinta gaarsiiya buu ma gaari diintu. war muslimka u baahan dib in loo dhiso. muslimka dhan ayaa u baahan diintiisii iyo iimaankiisii iyo akhlaaqdiisii in dib loo hagaajiyo. haddaan hagaagna inaku oon toosno, waxna waan toosin karnaa. haddaa inakii qalloocannahay ka warrama. allah ina toosiyo. fa walaalayaal insha allah dhahada inaad ijtimaaca soo socda ka wada baxdaan.
afar bilood iyo 40 ma niyooteen insha Allah dhahada bal ninkii niyoodo gacanta taag gacanta midigde soo diyaariyo insha Allah dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto iimaanka Allah inoo ziyaadiyo istiqaamana Allah inoo siiyo dad badan baa ducaa codsanay wada xanuunsana qof walba halku ka buka caafimaad sariic Allah ka siiyo dad baa ubadkii laga qaatay Allah uga soo celiyo dhalinyarada xidhan Allah inoo soo daayo kuwa lunsan Allah inoo soo hadeeyo kuwa maqan Allah inoo soo celiyo dalkeenii nabadgelyadiisa iyo dowladnimadiisa Allah inoo adkeeyo khayraadka dhulkeena yaalana Allah ina tuso Allah ina tuso wanku baa la yidhi cirka wuxuu arkaa marka la gowraco birta la mariyo dadkeenu weli khayraadka wadankeena yaala may arkin Allah ina tuso amniga wadankeena yaala Allah ina tuso arsaaqada dhulkeena taala Allah ina tuso islaamnimada ilaahay dhulkeena uu dhigay Allah ina tuso diintana istiqaamo Allah inagu siiyo dalkan aad timaadeen Allah inagu ilaaliyo ubadka iyo dumarka intaba Allah inoo ilaaliyo bixitaankaas 40 cisho iyo 4 bilood waa wasaa'ilu dacwa qofku waa inuu waqtigiisa nidaamiyo waa nidaam waxaa qaayuhu waxa weeyaan dadka masaajidka salaada dacwadda culumada barashada diinta jacaylka diinta loogu yeedhayaa lilwasaa'ili xukmu lmaqaasid bay culimmadu yidhahdaan shaygu wasiilo markuu yahay qasadka loo adeegsaday buu qaadanayaa xukunkiisii qasadka loo adeegsaday hadduu yahay mubaax wax banaan wasiiladu way banaanaan qasadka loo socday hadduu yahay maaragtaanay xaaraan hadduu yahayna wasiiladu xaaraan bay noqonaysaa qasadka dacwadda u socota wax kale maaha ummaddan inay usoo noqotaan loo baahan yahay ilaahay rasuulkiisa oo dadku masaajida camiraan oo cidna aanan la dayna dadka ilaahay lagu soo xidho markaa kuwa ilaahay dadka kusoo xidho Allah inaga dhigo shaqaale diinadoo la aqbal Allah inaga dhigo وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله